بسم الله الرحمن الرحيم aad baa u maasantahay shirkan maanta halkan ka dhacay hoolka wasaaradda cadaaladda ay isugu yimaadeen dhammaan daneeyayaasha ama hay'adaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha haday yihiin kuwa garsoorka maxkamadaha iyo xeer ilaalinta haday tahay maxkamadda ciidanka haday tahay maaragtay xabsiyada wasaaradda amniga wasaaradda haweenka wasaaradda cadaaladda hay'adaha caalamiga ah hay'adda UNSOM hay'adda SSF EU dhammaan waxa la isugu yimid waxay ahayd in halkan marka hore kulankii billaha ahaa Human Rights Working Group ama dadka ka wada shaqeeya xuquuq aadanaha ay ka wada shaqeynayeen ama ay kaga arrinsanayeen xaaladda xuquuqda aadanaha Puntland oo xafiisku uu hormuudka ka yahay in shirkaas uu qabsoomo marka labaad waxa shirkan maanta ajanduhu uu ahaa warbixin ay soo gudbinayeen guddi isku dhaf ah oo ka koobnaa mudanayaasha golaha wakiilada dawladda Puntland qaybtooda maaragtay guddiga xuquuqda aadanaha ee golaha wakiilada dawladda Puntland iyo xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland si wada jir ah kormeer ay ugu soo sameeyeen deegaanada Puntland oo dhan kormeerkaas oo maaragtay lagu soo sameynayay hay'adaha booliska hay'adaha asluubta ciidanka asluubta maxkamadaha baraha xafiisyada dawladda barakacyaasha iyo dhammaan halkan marka waxay golaha maaragtay wakiilada iyo xafiisku ku soo bandhigeen dhammaan wixii la soo arkay baahiyaha maaragtay jira waxa weeye challengeska jira maaragtay waxyaabaha ka dhiman ama hortaagan in dadku xuquuqdooda aadanimo ay ku naaloodaan runtii aad bay u soo dhaweeyeen ka soo qaybgalayaasha warbixinta xogta loo soo bandhigayna runtii way ka marxaati kaceen waxyaabaha ugu daran saddex shay bay ahaayeen in meelaha qaybtood xeerarkii la ansixiyay sida xeerka kufsiga sidii la rabay uusan uga dhaqan galaynin in boolisku uu runtii xaaladiisa aad u liidato xagga agabka xagga shaqada xagga maaragtay cabasho ay ka cabanayaan mushaaraadkooda xuquuqdooda maaragtay mushaaraadka maxkamadaha sidoo kale iyaguna ay ka cabanayaan xuquuqdooda mushaaraadka waxa kale qodobka oo kale laga hadlay halkan wuxuu ahaa sidee baa la isu kaashan karaa oo xaaladda hadda jirto xuquuqda aadanaha kor looga sii qaadi karaa meesha ay maanta taagan tahay waxa la ballan qaaday maadaama shirkan bille uu yahay saddex maaragtay kulan uu ka dhacay wasaaradda cadaaladda holkeeda in ama UN-ka ama wasaaradda haweenka ay shirka soo socday iyagu qaban doonaan shirarka kalena hadduu Ilaahay yiraahdo waxa looga hadli doonaa wixii la soo arkay oo laga dooday oo la yiri hal la gudbiyo wixii ka suurtagelay guddiga golaha wakiilada ka socday guddiga xuquuqda aadanaha ee golaha wakiilada xildhibaanadii ka socday iyo xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland waxay ballan qaadeen dadka xuquuqdooda ka maqan ee gaar ahaan mushaaraadka iyo xuquuqda mataqaana gunooyinka ka maqan in aan u gudbino hay'adaha kala duwan ee dawladda oo ugu sareeyo madaxweynaha dawladda Puntland maxaa la asaga dalkan u dhaartay asaga mas'uuliyadu saaran tahay inuu ka jawaabo ama uu mataqaana amro hay'adihiisa wasaaradaha sida wasaaradda maaliyadda xuquuqdaasi dadka ay leeyihiin waxay u bixi weyday iyo sida loo bixinayo shirku wuxuu ku soo gabagaboway jawi aad u wanaagsan oo is afgarad leh waxaana la ballan qaaday qolo kasta inay dhankeeda ay shaqada ka qabato gacan xuquuqda mataqaana ka maqan lagu raadiyo gacanna mataqaana shaqadii loo idmaday hay'ad kasta inay qabato ay fuliso oo aan maaragtay dayac uusan imaanin gaar ahaan xilliyada soo socda oo mataqaana xilliga maaragtay ka dambeeyo uu ka sii adkaanayo aad baa u mahadsantihiin